taal xamar moogta siyaasadeed oo hawiyaha ku sheekaystaan meesha joogo nin waxaa arkaysaa nuqbada xamar kamid wuxuu ku leeyahay waqooyiga maxay la maqan yihiin moos iyo waxaa ka maqan maxay ka helayaan cambe nin weyn oo siyaasi midaa wuxuu iska leeyahay waxayna kula cunay waxaada kula cuna waaye nimanka dadkan docolaha joogo beriferiga jirana maxay aaminsan yihiin xarun dhexe inay kasoo shallaayeen oo xukunka iyo baawarka iyo privilegeka iyo resourceka hal meel inuu yaallo hadda fiiri markaas si dhiiba u degto ninka hawiyaha xamar joogaaho cabsi haysa ma jirto sanad ma qabo cid inay u timaado uu ka cabsanayo ma jirto laakiin dadka docolada jira oo periphery waxa la yiraahdo jira in la soo weeraro la qabsado ama la qasbo way qabaan ya shaka taal xamar moogta siyaasadeed oo hawiyaha ku sheekaystaan meesha joogo nimankan reer Puntland miday ku sheekaystaan wada majestan hormud u yahay isaaq miday ku sheekaystaan Soomaaliland bay dhaw markaa timaad sheeko kala taalo digil miflaha oo dawlad macna leh oo capacity leh oo wax qaadi karta oo taxadiyaadka soo socda gali karta lama dhigin waxa la yiri ayadoo urduna saddex hal raadii leeyahay saddex lama helin tiin oo kala tag marka waxa dhigi karaa leaderska hadii la qiimeeyo waagaas jiray ama xorriyada keenay ama hoggaanka dalka haya hadii la qiimeeyo strategic mistake sameeyeen qalad strategy oo sameeyana mudnaantii la rabay ma aysan siin dawlad dhiski oo ciidamada daafirisa taariikhda 60kii sidii loo aaday afartii markii heshiiskii Abdishiid Allah naxariisto wasaare uu galay Moscow oo 10 kun oo ciidan u dhisay reer galbeedka u soo horjeedeen macnaheedu siyaasadda gobolka adduunka dhan laga soo horjeeday sababtoo markaan galayna cidna gacan ku maanaheena kaligeena galnay Soviyetkii dhanaa ciidankan dhisay oo qalabkii militariga siina isbee partiga xataa ciidanka bixinayay saraakiishii tababaraysa bixinayaan aan faqad intaan saarnaan niri kaligeena isku tirsanayna anagu cilmi ku ogeyn marka qaran dulka oo tii military halkaas ku soo bilowday qaran jabka halkaas ku soo bilowday inqilaabkii dhacay jabhadiyaha sameysmay meesha lagu kala tagay moogta marka waa muhiim marka dadka hadda siyaasadda ku jira in taariikhda og yihiin waa muhiim wixii soo dhacay iyo wixii la keenay markii lagu kala tagay maamuladii qaar oo iska sameysmay iyadoo dawlad jiray hadda laygaleele isa jirin Soomaaliland sameystay madaxbanaanihi sheegatay Puntland sameystay autonomy sheegatay markaas ka bacdi dawladii kale laygaleele hogaamiyaasha marka imaanaya sidii waxay u fakarayaan ay ku duntay marka ana talinay dad kale waxay leeyahay ma talinaysid waa wada tashanayna ana talinay ilaa maanta joognaa marka waxay u baahan tahay qof in hoggaan fahmi kara ama nuqba siyaasadeed wacigeeda gaarsiisan yahay maxaa lagu kala tagay horta maxaa qaldamay taariikh ahaan maxaa lagu kala tagay maxay Soomaali kala maqanta marka is-aaminaan la'aanta gaabka bridgekaas buuntadaas aaminaan la'aanta see lagu kabi karaa maxaa kabi karaa sheekooyinka ama narrativeka ama sheeka xiriirta meel walba taala ma lahayaa Hargeysa maxaa yaala garow maxaa yaala xamar maxaa yaala ya sheeka taal xamar moogta siyaasadeed oo hawiyaha ku sheekaystaan meesha joogo nimankan reer Puntland miday ku sheekaystaan wada majestan hormud u yahay isaaq miday ku sheekaystaan Soomaaliland bay dhaw markaa timaad sheeko kala taalo digil miflaha sheekooyinka horta qofka hogaamiyaha noqonaa ma ka warqaba horta ma ogyahay mise asaga iska fasirto nin waxaa arkaysaa nuqbada xamar kamid wuxuu ku leeyahay waqooyiga maxay la maqan yihiin moos iyo waxaa ka maqan maxay ka helayaan cambe nin weyn oo siyaasi midaa wuxuu iska leeyahay waxayna kula cunay waxaada kula cuna waaye nimanka dadkan docolaha joogo peripheryga jirana maxay aaminsan yihiin xarun dhexe inay kasoo shallaayeen oo xukunka iyo baawarka iyo privilegeka iyo resourceka hal meel inuu yaallo hadda fiiri markaas si dhiiba u degto ninka hawiyaha xamar joogaaho cabsi haysa ma jirto sanad ma qabo cid inay u timaado uu ka cabsanayo ma jirto laakiin dadka docolada jira oo peripheryga waxa la yiraahdo jira in la soo weeraro la qabsado ama la qasbo way qabaan hadda ka hor anoo xaraaro ka hadlaya dhuusa maree markuu dagaalka shabaabka socday madaxweynaha si private wala sheekaystay xasan sheekh ama waxaan ku yiri dagaalkan wuxuu u baahan in la macneeyo dagaalka shabaab lagu jira kale hadii shabaab hadii laga guulayso xagee loo socdaa marka waxaa dhici kartaa diri inay dad aaminsan yihiin waxa shabaab ku guulaysana hawiye inay yihiin oo ay wuxuu ku qabsanaa dhow hadii ka adkaadaan dhici karta wiil baa su'aal weydiiyo meesha ka dhex istaagay wuxuu yiri aniga saas uma dhihin laakiin
wiila su'aal intii weydiiyey wuxuu yidhi maxay kula tahay haddii hadda dagaalka shabaab looga guulaysto xaggee loo socdaa yaa xiga oo ciidanka loogu jihayn doono arrin markaas lagu qabsadaa jirtay oo meesha aan ka hadlayay oon iri waay dagaalkan madaxweynihii dhuusamare u fadhiyo shabaab lagula jiro caabud waaq aysan ugu jirin ee ugu jirtaa inay lacag u aruuriso dagaal ka socdo lascaano marka fiiri ummaduhu markay isku cadow ahayn isku halis ahayn isku xusuus taariikh ahayn isku hiigsi aysan ahayn lama miday kala dee iskumana keeni karo xilliga dheerna wuxuu dhaliyey erey aan dhowr jeer kaa maqlay in la kala bogsooday la kala bogsaday haa ooba la kala sheekaa la yahay bade isku sheeka ma nihin hadda qofka hargeysa jooga qofka garowe jooga qofka xamar isku sheeka maba ahaba isku narrative waxaan yidhahda maba ahaba nima waxaa ka maqan kan cabsi kama maqna midkaas waa cabsanaya wuxuu isleeyahay haddii awooddan iyo diyaaradahan turkigan iyo ciidankan turkiga keeneen iyo hadda ka hor maran aan turkiyada la kulmayo waxaan ku dhahay idinkii ciidan maxaa soo kala barteen dhibaato badanay dheheen annagii ciidan saas waan ku niri soo ma arkinin diyaarado miyig kor saaran hargeysa haddaa tagteen waa cabsi ciidanka laga qabaan ku yiri markaas ciidan soomaalida diyaaradiisa inta kacaanay hargeysa duqaynayeen ciidan soomaaliyeeda baraaga duugayo naago kufsanayay golada waqooyi bari markaas ilaa ay ku timid dee xamar iskula timid marka ciidanka wuxuu yimid dowladdii rayidka serjita la dhihi jira serjit la dhihi jiray qofka serjitada ani aabbahay ajira serjita waa ciidanka wuxuu ahay qof ixtiraaman u ahaa ciidanka soomaaliyeed dignitile ixtiraam loo ahaa jiray xataa waxaa jira in dhalinyarada askarta ah ay gabdhe hel badnaayeen dhalinyarada kale macalimiinta ah ama shaqooyinka haysta deeroo togan oo ahay nabisan aan aqaana marka aabbahay asaas ah askarta waa lagu faani jiray dowladda markay dhacaysayna askari waa lacnadahay balse ra-iisul wasaarihii markaas jiraa yiri ba askartaas dhiibaan jabadaas ku dhiibaan marka askariga wuxuu sharfan yahay markuu calanka iyo dastuurka iyo sharciga ixtiraamayo kasoo qiimo leeyahay laakiin hadduu damo inuu calanka iyo darayska iyo qoriga oo dadka ay siiyaan wax ku dhaco hadduu damo waa qiimo beelaya marka askartan la aruurinayo oo ciidankan 3,000 hal mar la soo saarayo la gaadisiinayo oo annaga aan ku faanayno oo madaxweynaha uu leeyahay haddaan ka dhanna heblow aan leenahay ciidan ma yihiin dadka ma aaminsan yihiin mise adaa qoranaya iraarahaaga malagula aaminsan yahay horta waxaa malagula leeyahay muunad qara ciidanka ama ciidan nationala ma yahay oo dadka wada leeyihiin ma yahay mise ciidan adiga kuu shaqeeyo adig kaa amar qaata haddayse adig kaa amar qaadanayn sharci iyo dastuur ay ixtiraamayaan ma jiraa oo ka joojinaya hadday saas ahayn maxay ilmaha inaaga uu kala haya subxi ay guryaha uga duminayaan hadday ciidan qaran yihiin meedahan waxaa nama qabato annaga wixii naloo tababaray iyo wixii nala baray ma ahayn inaan dadkeena rayidka aan ku soo noqono kuwii miyiga kicinaya hallini markii laga reebay inta kale ma dhihin ninka si u sharfan yaha maaragta hadda qayloodkii diiday si u sharfan yaha maaragta karaamo u leeyahay aawo kuwii duqeey intay jiraan maanta duqeynta geysta ma jiro ninkii diidayna oo diyaaradda jabuuti ka dejiyeyna ilaa hadda meel kasta soomaaliya tago daafaheeda xataa somaliland laga marti qaaday maalid oo ka sharfnaa marka dee dignitiga iyo sharafta xaafiiska uu leeyahay iyo reconciliation in lagu sameeyo dadka in laisugu keeno waxay u baahan tahay kuwata taariikhda ina hayso hogaamiyada labo sheekada deegaanka taaldhan ina hayso maxaa lagu kala maqan yahay maxaa ka runa maxaa run ka ahayn maxaa addarees garaynaya maxaa dhaba maxaan dhab ahayn